هارون الرشيد وحوها دولة العباسية حلق يذيبها وحربنا وقرن قل بعد أخ مدحيسي وحا ويمد نين دختر الرومانا نين دختر عدانا ويمد مركاسو لكفتمو وحول أيها الملك بقروا بكل هاي قرآن كي نوانا يقول علم الأديان بكو الرماية علم الأبدان كما الرماية علم الأبدان ودختر لماذا قرآن كوحو كو الرماية مركان دقيستي الأديان بس آخرة جنة شريعة أحكامة صلاة زكاة حجك وحاومو كو الرماية بالقرآن كين لكن دختر لماذا كما الرماية بالقرآن كين هارون الرشيد أيها يدي الله ونحرسته آيات بركين أيها إلهي علمك دختر لماذا ودبو كو الرماية آيات بركين سكدا آيات لما يسرني وآيات ده كلوا واشربوا ولا تصرفوا إن الله لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين كلوا عنبا إلى هيدا عنتدا واشربوا عبا ولا تصرفوا لكن أكو إسرافين إلى هيدا آيات دي بالله شرح الله معنى نكي دخترك وحيري والله وارون بيقول قرآنكم هدا وحبك ما تجين بيقول وحبك قرآنكم مريبين بقى waxaan annagu aan dhakhtarnimada aan ku gaadhnay buu aqoon oo xaqiiqadii aan soo taabanay xanuunada bini aadanka qabta oo dhan waxay ka bilaabmaan caloosha ka bilaabmaan ma malaa ibnu aadam ba nabigu yahay wa'aan asharra min badnihi ba nabigu ina aadan mabuuxin wal ka shar badan calooshiisa hadii uu kama maarmaysaan cunteey buu nabigu yiri oo kulli cunto iyo acab kama maarmaysaan in yaro dhabarkaad ku tiirisaan cunabu nabigu yiriyo calooshina saddex u qaybiya qaybna biyaha ugu talagala qaybna cunnada ugu talagala qaybna nafaska ugu talagala iyo hawada nin caraba ayaa la sheegay oo maaragtaan diinta islaamka aad aan u aqoonin oo carabta iska cilmaaniyiintaaya laakiin muslima dhakhtar buu u tagay wadanka Germany xanuunadiisa markii la baaray ee checking lagu sameeyay waxa la ogaaday inuu xanuunkiisan dhanba uu ka bilaamayo caloosha marka ninkii dhakhtarka ahaa ku yiri عربية ما تقانا لغة عربية هوانا قانا آخر سبو كيني مارك تاني وانك بروفيسور كي جرمال كنوا ودن كي وودن كي أدون كدختر نماذا وقهر ومرسن بالي بروفيسور دن أيا كل أيك بود هالك آخر سو لغة عربية هدا تقانا مركزو وحكوكر اللي قال النبي أوران مايانه قال دكتور محمد بيد هذا مركز طبيب محمد وحويري إن آذن مبوحين والكسر بدن علوشيسا حديث كان أنا أخريي نبو أخريي markaabuu ninkii uu sawirtay markuu masaajidii yimiday ayuu dadkii weydiiyay ku yiri war dhakhtarkan carabta ka dhashay ee dhakhtarada adduunyada ugu qiimo badan ee ugu qaalisan ee ugu aqoon badan xafiisyadooda erayadiisa ay ku qorteen in annagoo caraba aan garan laanahay waa kuma markaasaa lagu yiri bal erayada soo qorateen tus xadiiskii nabigu akhriyay markaasaa lagu yiri yaa jaahil murakkab ma nabigaagi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ayaad garan weyday baa lagu yiri qowlkiisa والله دخترادو مانتا أدونك دخترادو واي باتين هوسبيتالادونا واي باتين داودونا واي بداتي بوكانكو مو يرانا يا مسوون بيريا بليش هاga وسي زيادة كنت سنة كور سيديت سنة كور waxaa laga yaabaa magaalada Beedham in la maqli jiray oday hebel la yiraahdo xanuunsan hal loo duceeyo maantana aqal walba waxaa laga yaabaa haday 7 qof ku nooshahay 5 baa bogto xanuunsan markaas dhakhtaradii khaatiyaan billahi bay noqdeen dawadiina qish bay noqotay qish laba qolo qishka ka shaqeeyaan waa ganacsatada raashinka keenta raashinka keenayana waa raashin kiimikaal waxay noo keenaan qolada dawada keenaysa dawo sax ma keenaanba illa man rahima rabbi dadna dhakhtaradii way daaleen markaas dadka kula taliyaan laba shay waxay u nin cuntadana iska yaree socodkana badsada magaalooyinka caasimadaha adduunka waxaad arkaysaa ganacsatadii iyo tujaartii iyo madaxdii odayaacaysa iyo dumarkooda reemiga ka warrama reemiga orad muu baahan yahay war muu baahan yahay iyo caafimaad badan ma reem magaalka caafimaad badan mise reem baadiya maxay ku caafimaad bateen waa labadaas sifay leeyihiin cunto yar iyo socod badan bay leeyihiin shaqo badan bay leeyihiin waxaa la ogaaday nolosha dabiiciga in loo noqdo mooyaane noloshan adduunyada aan leenahay waa horumar oo gaadhigaagii baa isfuraya oo aqalgaagii baa isfuraya oo sariirtaadii baa islaalaabaysa oo diyaaradii baad caalamka meel walba ku geynaysa oo adduunka maqal iyo muuqaal baad kula xidhiidhaysa
oo zoom baa shirarka lagu galay waa la horumar leeyahay horumarkay gaareen may corona iskaga celiyana corona ilaahay ku salido dhaqaalooga ilaahay dhulka ku galiye oo fasaadkii la wareegayna leeyay edeb sameeyo aqalada fadhiiste zinadii iyo fisqigii ay la wareegayeen touristigu aqaladooda ilaahay fadhiisiyay وما نرسل بالآيات إلا تخويفا مركز نقدر ندعير والطبيعي حنون كان وحنون طبيعي عمل الذي بحماتيو ما ركتان كيميكال كي أدوية أيا قبصديو لأن حنون نحن بدلنا طبيعي ما واحد طبيعي مجران وحولب وآيات إلهي ويان وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لذلك ولا ليال رجوع إلى الإسلام ما أنت الزمن كان جوغنا حل كلام مجرى إلا دين الله صلى الله عليه وسلم قالدي dadku ay daba socdeen ayaa darbi madaxa ku dhifatay gaaladii baa kule ilaahay noo bariya waxa dhawada corona adduunka ka kala qaylisiyay nin talyaaniga waxa la sheegay inuu yiri awoodii dhulka way dhamaatay awoodii samada u bahadhay Allah waa gaalkii baa sida kule wasligeena wuxuu ku leeyahay masaajida xidha salaadana kala dheeraada quraankana ha taabanina la ilaaha illa allah wal kaafir yaqul ilaahay noo bariya gaalkii baa kule ilaahay noo bariya مسلمين وحكوا له إلهي كفوا هذا حقنا صعنا مركز ففروا إلى الله إخواني وحن إلهي أنا قلنا نفسي إذا كل إلهي حق يسال الله يعو مالك لما جبت زمان دينتي أنا هنبرنا دينتي أنا هنقبصنا دينتي أنا هنكون نغنو إخلاص ضد مخلصين هنغنو مخلص ومعي والأمد هذا وحتر إلهي درتي وحتر هذا مع القبين تهي نقالها الأمد وحتر هذا عالم تهي علمك ومدى وحقوتر هذا مسؤول تهي مسؤولية الله صار ما حلق أقل هذه سنة يسي وحلق ومدى هذو هذه يسي لذلك أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركي خلافة الله ديبي أنصاري مهاجرين أمي ديي صدح مع الموضوع ومنبر كان تكون نقضى أيولها أما نديني ونيسو عليا نكال أوليبتا مركي أبي صحابة الله ينمي أذان نوغو خير بدن أذان نوغو خير بدن عد كان متيستي إمارة مجرت بيكون هذين وايو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو نول أو نفط أي كون جرت النبي قال له الصلاة دي بتاعن مركب النبي يقول أبو بكر وش قدرت الصلاة حكب بحياة مركب الصحابة لين أبو بكر ما دام عمل آخر هذه إن أنفع يا أدق هذا الإمام نوغن نقطي نبي محمد أو نول هذا الإمام نوغن نقطينا أدوية إذا ما أنت هذا قم بنوها جكرا والله سدا هذي أمة مسلمة قول أي دون يسوع نبنيك وكألا كعبس بدني هاي بطلاد ودي بالله نبنيك وكسلات في عين هاي نبنيك وكذكر بدني هاي نبنيك وإلهي وقدوا يهاي أيا لو رن لها كابا إن بدني تلاد إنه ودي بال زمان كان وذا كلام ده هذا وذا مسكين كفردي إنه مسكين واي فردي المساجد وذا لكن هذا حاجة وصعتها قال لنا كهر تمدين نظام كي قال لنا دون كشقين وا حاجة وصعتها مركا رجوع إلى الله إلهي حق سانو صنقنا دينتنا كشقينه ودتكنا حدثنا وما ده إلا دسالو بهاي هاي ومدالا ودوينك غوغوان ودوينك هذا إسكا غوغوان يهين معنى مله هذا دتك إنه حاجة أردنا يرد إنه ويلا يقبض إلهي حق سأون نقدا أردنا يرد مساجد إنه عمرة وقبضونا محجبات السرور إنه نقدا وجناع أي دقاله مساجد كل سان مدارس معلمين تكون فقيا يا إلهي درتي أي دقاله وبحيا والزكاة الضعفاء فقراء أي سيا هرمرك وتاستاسا كل اسمنا يقول هذه ودك حتى صدى إسكا هذا لكن دتك أي إلهي وصول نقدان وإلهي كبغان والله واللي بني أقدا لكن هذه ودك الله دسو ودلوا وين لقى دسو ودويك الله وضع دسو دكتور عصري الله كانوا أرب بور الله نو سمايو ودك دكذا لقى وضع سمايو ودتك وضع موريان نقدان كورما تلكورما ما من هرمرني معي ورمضها اللي قد دالو دعوة دوا محي مركا الدعوة إلى الله دتك حق إلهها نقول يرنو دتك دينتها كبر رجنو دتك دينتها برنا واحد كده جنتهاي دتك هندسنو دتك إلا الدساء يا أولى مسدولك إلا الدسو بليك جوابه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وكلها عرضت علي بدحاء مكة لا يبان دقيب النبي والذهب لا يقدقوا مركز يا ربي ما دون يقدها أدويد والله ما الموت مالنا وانقاجون
maalintaan gaajoodana waan ku weydiisan maalintaan dhargana waan kugu mahadin uu diiday nebigu adduunyada calayhi salaatu wassalaam nebigu inuu dadka hagaajiyo dadku uu hagaajiyey ilaa qiyaamaha waxay yihiin example lagu dayday yihiin iska daa muslimkiiye wallaahi gaaladii baa markay siirada cumar ibnu khadaab akhristeen waxay yidhahdeen ninkaasi hadduu mar labaad adduunka iman lahaa mashkiladda caalamka taalla isagoon baa xallin lahaa bay yidhahdeen gaaladu oo cumar faaruq radia allaahu canhu walaal dadkeennaan dhisaynaa diin baan ku dhisaynaa dacwaddaan ku dhisaynaa iimaankoogaan dhisaynaa aqoontooda diineed baan kor u soo qaadaynaa intay doonay hay naga qaadato 50 sano ha kaa qaadato 100 sano ha kaa qaadato laakiin jiil inaga wanaagsan waa inaan ka tagnaa innagu mithaal inteena halkan fadhida aabbayaasheen allah u naxariista intay dhimatay amiin dhahda xagga dadnimada ma inaga wanaagsan mise inagaa ka wanaagsan sidee kaaga wanaagsanay bal sheeg been may sheegi jirin ballan hadday qaadaan kama bixi jirin qabyaaladii casabiyad may oqoon dhiig muslima xaqdarro kumay daadin jirin dad waxay haayeen marti hadday u timaadana halkaa ku qaada bay haayeen culammadooda iyo akaabirtoodana way jeclaayeen dadnimada haddii la eego waxaa la eegaa dhismaha iyo aalaadkan ha eegine xagga qiyamka bini'aadantinimada eeg jiilba jiilkii ka horreeyey baa ka khayr badan ogow haddaba innakii haddaan maanta aan arkayno in mujtamacii dhallinyaradii u badnayd ay sii xumaanayaan ay sii liitaan oo aabbo walba ubadkiisii u arkayo oo khatar ku sii socda jiilka soo socda 50 sano kadib say noqon doonaan markaas marka maan daawannaa bay kula tahay mise waan dadaalnaa ii sheega yaala waan dadaalaynaa soo ma dadaalayno marka dadaalka dacwaddu waxay ka dhigan tahay war dadka aan islaaxinno waqtiga inagu dheeraan waa annaguna waa iska hadal badan ee raalli ahaada qolada tabliiq waxaa la yidhaha waa iska hadlaan moogtahay badeecadda keliyan wadnaa in ummadda u sheegnaa waa hadalkaana markaan sheegayno wallaahi dadku hana gartaan oo hana bartaan oo sheekh hana yidhahdaan sheekhiina ma nihin ugama jeedno waxay naga tahay ilaahay dartii in annaguna ilaahay ugu dhowaanno dadkuna ay fahmaan war dadka inaan dhisnaan maanta uga baahi badannahay wax walba allah inagu anfaco wasala allahu calaa sayidina muxamed cumar binu khadaab radia allaahu canhu oo xajka u socda ayaa waxay arkeen nin marka aad u soo socdo faraska aad u soo eryanaya marka cumar binu khadaab baa eego wuxuu yidhi ninkaasi kolley annaku noo socdaayo joogsada buu yidhi uu joojiyey cumar ciidankii ninkii oo aad u daallan oo aad u naxsan baa markaa cumar soo gaadhay cumar hortiisu ku dhacay cumar baa markaa ku yidhi ma nin cadow eryanayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oon ku magan gelinaa mise nin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayey oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay mise nin naf bini aadana soo gooyey oo xaqdarro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna mayhi buu yidhi waxaan ka imide buu yidhi basra ayaan ka imide basra waa magaalo ku taal ciraaq abaa muusa alashcari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo jooguu dembi iga dhacay buu dembiga kaa dhacay muxuu yahay khamri baan cabbay buu yidhi dabeedna abaa muusa alashcari baa intuu qabtay buu iga jaray buu yidhi xadkuu imariyey haye timihiina uu iga xiiray haye farasna intuu igu qaaday buu magaaladii basre i dhex mariyo wuxuu yidhi ninkaa halla cunina oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yidhi wejigaygiibu iga madoobeeyey buu yidhi markaa naftaydii 3 mid bay iigu sheekaysay inaan sameeyo imaa inaan abaa muusa alashcari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imaa inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabbayaanna aan la cabbo waxay cunayaanna aan la cuno iyakana aan ka mid noqdo imaa inaan adiga kuu imaadood iga qabatid amiirka mu'miniinta marka cumar bnu khadaab ayaa yidhi radia allaahu canhu inaad ii timiday ilaahay baa ku waafajiyey buu yidhi inaad gaalo u tagtaa ha yeelin inaad abaa muusa alashcari isagana intood aad u dhumata aad dishaana ha yeelin mar haddaad aniga isoo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya bui hawsha waan qaban buu yidhi warqad buu qoray warqadda nin kale cumar uma dhiibin isagiibuu warqadda ugu dhiibay isagii ku dheh amiir almu'miniina cumar agtiisaan ka socdaa uu ku soo salaamayey
waxaad ku tidhaahdaa haddaad amiirkaagii aan ahay warqadday ku qoran tahay oo xaqa aan kugu leehay abaa muusa alashcari oo aad qadarinaysid warqadda ninkaa uu kuu keenay dhegayso qaabil buu ku soo amray uu soo noqday ninkii cumar weliba ninka ma sii dayn faras buu siiyey lacag buu siiyey dhar buu siiyey kolkuu muddo welibana uu hayey ayuu yidhi haddaba imika soco u tag basre ayuu markaa ugu yimid abaa muusa alashcari oo khudbadaynaya markaasuu amiirkii muuminiinta cumar baa i soo diray ajiib istaagay uu ku soo salaamayey warqaddaana wuu soo dhiibay akhrisa buu ka yidhi warqaddii buu akhristay ninka faraskaaga saar magaaladii aad la dhex martay marka hore la dhex mar waxaad ku tidhaahdaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin uu toobad keenay toobaddu addoonka ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco o dhanna waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiyo anna waan cafiye dheh abaa muusa alashcariy radia allaahu canhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid uu madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii uu sidaa usoo dhex mariyey waa walaalkiin uu toobad keenay cumar bnu khadaab buu u tegey cumar buu fariintaa inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taa dadnimadu mas-uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya abaa hurayra radia allaahu canhu gaajo daraaddeed buu masjidka nebiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nebigu uu ka baxay uu ku dhici jiray ninka reer miiga ee magaalada madiine ku cusub ayaa intuu isku dultaaga odhan jiray war maad waalan tahay meesha ka kax markaabuu odhan jiray ma waali abaa hurayra wuxuu leey waali maa waxaan la jiifee gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkaa aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-aanigama yahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmin aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi halkii ku soo degtay haddana abubakar baa yimid abubakar waadna bal aayadda iiga jawaab halkay ku soo degtay abubakarna ima garan oo ima fahmin aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi waa abaa hurayra baahi baa haysa 3 maalmood iyo 3 habeen afkiisa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegta buu ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtaray moogta soo ma haynta soo ma xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegaye mashruuc gaalow innakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeedhata ka waran adigu halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan melheblaayo balaaya ku dhacday ayaa laga alla beri jiro la odhan jiray balaayo baydh iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo baydh xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi muuminku balaayo ma sheego muuminku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadith nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayoo leh ilaahay baa waxaa oo dhibaato igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilaahay kaa qaban war mahayeed baa ilaahay kaa qaban bal sheeg muuminku balaayada ma sheego abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin abibakarna uma sheegin uu qarsanayey laakiin wuxuu bal siiro farsamo leh ayuu wejigaaga un bal kolkay eegaan ha kaa dareemaan oo ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahlu sufaad ahayde oo magaalada madiine qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan iyo kiina may fahmin
walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu igu soo baxayba halkaasuu nebigu ka fahmay, halkaa buu ka fahmay. yaa abaa hurayra kaale caawa aniga ila soo cashee buu ka yidhi, kaale ila soo cashee. koob caanuu nebigu ugu yimid reerkiisii, koob caanaa maxaa yaalla, koob caanaa ku yaalla nebi allow. yaa abaa hurayra masjidkii ku noqo, ahlu sufiyo dhan inoogu wadeer caawa caanaha inala cabaane. waa koob caanaha. abaa hurayra nebi maxamed hadalkiisa maya ma odhan karo, laakiin niyaddan ka idhi buu yidhi koobkan caanaha adigoonba kugu fiicnaaye miyaa laguu dhiibaa, ha ku cibaadaysatid laba habeene. ahlu sufuhuna waa raggaad garanaysidee masjidka deganaayo ayaga laftigoogu maalmaheeda waxba cunin. dee kollay nebigu kolkuu u yeedho ay yimaadaan ay fadhiistaan, aduu kooridan abaa hurayra oo caanaha qaadoo siisii ka u horeeye la siiya hemin buu. laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayna way u yeedheen, uu u yeedhay. aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meesha u dhacday. yaa abaa hurayra buu nebigu uhi koobka caanaha qaad, ninka ugu horeeyana u dhiib, ha kana qaadin buui ilaa isagu kuu soo celiye mooyaane. waa koob caanaha. ragga loo yeedhana waa raggee? ahlu sufa. kii horeeya markaasuu u dhiibay, waan eegay waa caano halkoogii jooga. kii kalean u dhiibay halkoogii, 90-70 nin iska dhe. markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hurayra ayaa hadhay ii sheeg. yaa rasuulallah adigii aniga hadh, fadhiiso aduu cab. waan cabbi ku celi, haddana waan cabbi ku celi, ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meelay caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buu yidhi. deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay, hambadii buu nebigu cabay alayhi salatu wasalaam. waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen, laakiin baahidooda ma sheeganayn, baahidooda iimaankaa daboolayay, iimaankaa daboolayay. wallaahi waxaan u baahannahay maanta ummadda in iimaanka loo dhiso, ummadda in ilaahay lagu xidho, ummadda in aakhirada loo jeediyo, ummadda in diintooda macaanka diintu ay leedahay loo sheego. taan maanta u baahannahay waa taas. ducaad ma noqonaa mise cubaad baan noqonaa? bal kala doorta. yaa u diyaar inuu noqdo daaci caabida. gaalada qureysheed adu wadaa. markaasay tihi may kalla xaashaa, hay wax sir anu nagama sugo, meesir baad naga wadaa iyo nagama sugo. markay qof run u sheegaya iska dhigtay ayay labadoodii ka soo noqdeen baa layidhi. kolka in yar soo noqdeen, cali baa yidhi oo ma warkeegaan rumaysanay oo warkii nebigaan beeninay buu. nebi maxamed baa nagu yidhi sir aan leenahay ayay gabadhaasi qurayshta mushrikiinta u wadaa, ee sirtaa ka soo qaada. maadaamuu nebi maxamed uu yidhi ma warkeegii intoon rumaynay ayaan warkii nebigana been ka soo qaadnaa buu yidhi. soo dhaka halaagsanay ma haddaan sidaa ku noqon. cali baa ku soo noqday oo ku dhiiradoo yidhi sirtaa aad naga wadid nebi maxamed baa ku sheegay, haddaad sirtaa halkaas soo dhigi weydid gacmahayaa kulay unbuu ka yidhi. markay aragtay labada nin dhiiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nebi maxamed uu soo sheegay 100% ay u rumaysan yihiin, ayay tidhi ii kaadiya haddaba. intay sii jeesatay mara timihii intay furtay timahaygii tagcanaa ayaa warqad intaa le ka soo saaray. warqaddii bay nebiga u keeneen sal alla alay wasalam. yaa rasuulallah waatan gabadha sirtay waday. warqadda ninkii qoray masaajidka nebigu dhex fadhiya, xalaqaduu dhegaysanaya, waa la furay, waa la akhriyey. risaaladani waxay ka socotaa xaatib ibn abi baltaca, waxay ku socotaa quraysh bay ku socotaa. waxau ka warramay marka uu quraysh uga warramayaa sirtii nebi maxamed, sirtii ciidanka, dowladdii islaamka sirteediibu gudbiyey. markaasuu nebigu sal allahu alay wasalam midabkiisaa bedelmay rasuulka. halkan cumar baa joogo markiiba kacoo yidhi yaa rasuul allah, ninkan munaafiqee nagu jira ee sirteennii gaalada u sheegayey anaa qoorta ka goynayay ugu fasir bukay. markaa buu nebigu yidhi cumar u kaadi yaa xaatib,
لبيك يا رسول الله ساسو لي لبيك يا رسول الله سركع بكي سرتينا إن قال هذا وشيك تمحك أبو أجبري بل شيك بكي وحول يا رسول الله وشيك رمتنا وشيك رجع مهاجرين تريروه يوبت فوق مكة كجي مادان نول بقبيل كيسي ما مكة الدفاع يوبت كيسي غير كيسي يهنتني مكة وكلها غير كيسي الدفاع يا أنا كما قال هذا مكة دجان كي معها وبت كي غير كي مع قريش كذا حميدي هذه وحان السري هذا أنت يا سرعة هذا قال هذا وشك قريشة وحيسمرنا يا الحاطب إنك نجد بدي هاي غير كيسي ترى يلا ولا انت صوبان وجد بس ان نوبت كيس غير كي بدباديان وان بدجليان ما نقد الله هاي قال لما يا جماعه منافق لمن يا جماعه قال وحانا هي مؤمن بان النبي الله سرت هذا سببته ابو شيغينا تاسو باي وكلف بس ان غير كيغا لين بدجليو وي قريش وحساب تمام يراهدان نكاسي انكم ماشي لو جوغاي غير كيس طريقه ودا وهكذا باتيس هكذا بيد بركاب النبي ابو صلى الله عليه وسلم لأن كان الذنب وين بوقل سرتي دولة الإسلام قال هذا وجودي مركز النبي قال آموسي إسلام مركي النبي قال هل كيف فديا آية في سورة أوائل سورة الممتحن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآية سورة أول كيغا آية لها أبوها الرئية آية إلهي تبارك وتعالى وحكو عديي إنه نكان حاطب وكمد يهي دونك مؤمنين إلهي النبي المغيسن إنه كمد يهي إلهي عدي إيمانك يسيب إلهي عدي وإيمان بالله مرخات الفرين مؤمن يهي مركز الله قد يقول لي يري كا إساقو كلي يما هنا بالمؤمنين تولن وحل أمر يا إني قال هذا ما دام قال هذا أو أيهين عدو قوقية عدو إلهي عدو برسولك إني سن أولياء كدغني أصحاب كدغني وأي صاحب كريم ما خلق بركاب النبي وعمر بويا يا عمر حاطب وكاس القرآن كبا إلهي تبارك وتعالى كل شافيين والقرآن كبا عد إيمان كيسا دنبك وقالينا إنه دب وقلنا قلنا والله قد جاي لكن عمر واحد أوقين يا أهل البدر بوها نكن والريد بدر وصدح بغل صدح يتوبن كينن يا دجال كبدر قلنا طيب الشيء وياه أهل البدر إنما تقان هذا جدودا وحال يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم يا أهل بدر وعدوا طاب السمية إني قد بيجيني والله واحد دون تان سمايا معنوه ما هن ذنوبته كلها معها نك بدرجة هدو قفنا بالليلي ودم بكدعنا سوء الخاتمة كل من ما يه حسن الخاتمة كل من ما كل لا أنا مالين تاسع إلى حياة مالين تترى مسلمين تأيري قالوا لنا أي صوت دولين يكون دجال كنت لقلين أي النبي وصار معركة بدر أين سوقت العير قريش دجال وبيجين لكن إلهي ما قدر دجال ماشي إنه كدعوا وحي لي ما دين يطلب لي ما دين دفاعي حتى نزل جبريل عليه السلام مالين بالما كمذا جبريل بسود بويري ما تعدون أهل البدر فيكم يا محمد رجع دجال كبدر كالك غيب قلي أكتينا قيمة هاي كلي بني شيك وهالكين محاك وأركتان فرقا سنة يقول من أفضل المؤمنين مؤمنين تقوى وفضل بدن إليه من وارقناه رسول فرقا سنة جبريل يري وكذلك ممن شهد بدرا من الملائكة سيدا سوك لأنكم هدان ملائكنا هاي ملائكة دقال كبدر صودا دعدين لقلق قيب الشيء وحال الله أركا إليه كوى ملائكة وفضل بدن تقدير وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته قدرك إلهي أولها ما نقرن ما أنت قدرك نبيين أولها عليه الصلاة والسلام ما نقرن لكن رقا ساقبت قدرك رسول قدرك نبي محمد بيقرته مكانة دي سيبه يقرتين وصلاني بدأ نبي كلها حجامة تومين بو نبي قلت تومين مالين تشتدن بديك نبي قال لك بوحيه عبد الله بن الزبير بو نبي قوي أول مولود في المدينة المنورة وياه
زبير بن عوام بعد لي ويدين وأسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير بن أبي يارد ديك يقال مالا عندك أركي كسو آس حلو ديبي ديكي كبح يجرك نبي محمد بالله ديبي للسواس صلى الله عليه وآله وسلم markaasuu dadkii intuu iska eego meel cidna kolkuu la baxay ayuu soo tartiibiyey tartiibta ma fahmaysaa ya uu soo noqday hayo cabdillaahi ibn zubayr dhiigaygii halkeed ku soo qaraysa balii sheeg markaasuu meel wax qaraysa meesha ugu qarsoodi fiican baa ku soo qariyey markaasuu halkee markaasuu calooshayday waan cabay dhiiga dhiiggii nebi maxamed dhulka inuu ku shubo waa u diiday saasuu la fadhiistay markaasuu walima sharabtahu maxaad u cabtay buu ka yidhi waylun laka min annaasi wawaylun linnaasi minka buu ka yidhi waylun laka min annaas wawaylun linnaasi minka ya bna zubayr cidda aan dagaal ku qaadana way bacday cidda dagaal kugu soo qaadan way bacday rasuulku